hirarka mawjado siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaq militari ayaa laga dareemayaa qaybo ka mid ah gobolka. Isbahaysiga difaaca ee NATO uu hormuudka u yahay Mareykanka ayaa hadda muujinaya maquunin maangal ah oo haatan ay ku doonayaan inay barbaristaag maangal ah muhiim ah mahuraan ah u muujiyaan maamulada baqdinta ka qaba Moscow. NATO waxay kordhin doontaa joogitaankeeda hareeraha xuduudaha Sweden iyo badda Baltic iyadoo codsiga suuragalka ah ee ku biirista isbahaysigana haatan la dardar gelinayo. Xogayaha guud ee isbahaysiga NATO ayaa u sheegay warkan warbaahinta dadweynaha ee Sweden iyo Finland oo jaarka la ah ayaa ku haray meel ka baxsan isbahaysiga, balse ku darsashada Ruushka ee Crimea 2014 iyo duulaankii Ukraine ayaa horseeday in dalalku dib uga fikiraan siyaasadooda amniga iyadoo xubinnimada NATO ay u muuqato mid sii kordhaysa. Labada wadanba waxay raadinayaan damaanad ilaalin military inta lagu jiro habka codsiga kaas oo qaadan kara ilaa 1 sano si ay u ansixiyaan dhammaan xubnaha isbahaysiga NATO. waxaan ku qanacsanahay inaan xal u heli doono baahida amniga ee Sweden ay heli doonto xilliga kala guurka ah, ayuu yiri xogayaha isbahaysiga NATO. laga soo bilaabo waqtiga suuragalka ah ee Sweden ay codsanayso oo NATO ay sheegtay inay rabaan Sweden inay ku biirto, waxaa jira waajibaad aad u xoog badan oo NATO ah si ay u awoodaan inay damaanad qaadaan ammaanka Sweden. xogayaha ayaa yiri wuxuuna raaciyay inay ku dari doonto joogitaanka sii kordhaya ee Sweden iyo badda Baltic. Moscow ayaa uga digtay Sweden iyo Finland cawaaqib xun iyo in ay hubka nuclearka iyo gantaalada hypersonic geyn karto meeraha Yurub ee galinkan haddii Sweden iyo Finland ay xubin ka noqdaan isbahaysiga. Arbacadii wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Ann Linde ayaa sheegtay in Mareykanku uu Sweden siiyay damaanad qaadka amniga muddada codsiga, laakiin ma ahan damaanad amni oo la taaban karo. Sweden iyo Finland ayaa la filayaa inay go'aan ka gaaraan in ay bishaan ku biiraan NATO iyo in kale.